waxaan ku riyooday madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo agaasimayaashiisa iyo dawladdiisa oo dhan oo intay meel fadhiyaan ilmada saa u qubaya oo waxa saaran ilaahay mooyaan dhibaatada saacaya saa isku soo dultaagay nin wasiiraan u tagay aroornimadii waa riya khataraan ku riyooday waa ruwaatii hore loo arkayay waa dhinacay ka imanayso wallahi iga tag inaana garanayn war sheeg madaxweynaha waxa tira diyaar garow waxba muu sameeyay waxa dhacay soo isniin maaha jimcihiina waxa dhacay gooja cadde afareenoo yaryar waxba hayno cayn ka haynin baa geeshkii dhanaa Soomaaliland jabiyay waa tidee lagu dooqay kii baan qabsaday war meeladu sheegay wasiir waadiga madaxweynaha oo maxaan u sheegay waad habaaraysay ma habaar baan madaxweynaha u sheegay buu marka ilaalinta nasabka la ilaalinayo aad iyo aad baynu inagu ugu qaldanay markaynu abagadhe iyo erer iyo dir iyo waxaynu sheeganaynay waa qalad waxaad sheegaysaan abagadhe iyo waxbaad akhriyeyseen horta de waa musiibo qarankan ku dhacday nasabku ciyaar ma galo ya nasabku ciyaar ma galo waxa weeye xifdu nasab wuxuu ka mid yahay waxyaalaha diintu ay hagaajisay oo looga jeedo nasabka marka la ilaaliyo inuu nasabku xalaal ku wada dhasho xalaal oo dad kale oo maxaan ku raayay tususi amba aan meel kale ka yimid aan iman marka nasabka waa la ilaaliyaa marka ilaalinta nasabka la ilaalinayo aad iyo aad baynu inagu ugu qaldanay markaynu abagadhe iyo erer iyo dir iyo waxaynu sheeganaynay waa qalad ma aha waynu ka wanaagsanahay sheekh saxaaq gabay buu leeyahay sheekh الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم وأمهم حواء فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالدين والمال شيخ سحاق باله وحالي محمد كريم سيد علي باله وحولي تدكو واسكمت وسواسوا لا يسمر ديرا وحشرف هو ليسديري هي مجرتو الناس من جهة التمثيل أكفاء واسكمت أبوهم آدم وأمهم حواء هو يدودي أبوه آدم حواء بلغ وذيبي marka hadduu asalkiisii ku faanayo ha ogaada asalkiisu inuu yahay adiinu walma dhooba iyo maxay biyo ilaahay ka abuuray aadan Soomaa marka wax la isdheer yahay ma jirto haddana marka dhinaca kale laga eego imika marka yuhuudda soo qaadano oo kale de intaasoo nabi bay ku abtirsadaan Soomaa ya waxay ku abtirsadaan nabi Ibraahim wuxuu dhalay inaguna carabtuna waxay ku abtirsadaa qayb kamid ma aha oo inta aalu beedku de nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu abtirsaday cadnaan buu ku abtirsaday cadnaan wuxuu galayaa ismaaciil ya idinkuna markaad sheekh saxaaq tihiin de waxaad ku abtirsanaysaan cadnaanka saasay ku noqonaysaa DNA-diin iyo kuwa hadii la isku darana daliil bay noqonaysaa sida u taal marka waxaan idin sheegayaa habeenka ay lahaayeen ir iyo waxaasaynu nahay ayaan habeennimadii riyooday waan ka xanaaqay horta markii la yiri abagadhe iyo dir baynu nahay iyo waxa la yiri ayaan furka tuuray jeelka anigoo ku jira oo de intan in ka badan ay mahool intan la eego kale aan ku jiro ayaa afeynada wuxuu soo xiray cid walba daaroodkii buu soo xiro hawiyii buu soo xiro isaaqii buu soo xiro halkaas aanu joognaa marka de habeenkii waa la ismaaweeliyay leerarka lama baqtiyo waa inta si istilaa askaru daaqadaha inaga daawadaan markaanu dhageysanayno hadlaynana daaqadaha inaga dhageystaan niman baa markaa ka caawiyay waa horta inoo sheega daarood mar buu qabasho lahaa maxaa looga jeeday ya mar buu qabasho lahaa maxaa looga jeeday deedna nin baa kacay markaasuu labadii qolob way kaceen hawiyiina way kaceen daarood wuxuu yiri waxa looga jeedaa daarood isagoo kaliya ayuu yimid xagga januubka deedna gabadh la yiraahdo doombira dir oo dir dhalay haddama hadirkii waa dir baa dhalay beriga gabadha dhalay ayuu isbarteen iyadoo ari la joogta gabadhii uu la haasaaway gabadhii markuu la haasaaway bay deedna markii dambe wax kaga fakadeen wali lama meherin ya waa sayde sheegay ninka sheegaya sheekadan waa nin hawiye ah ka sheekada sheegaya waa nin hawiye ah bas gabadhii waxba kaga fakaday oo hay marka wax kaga fakadeena uur bay yeelatay marka uur yeelatayna waxa la yiri soo qabta naagta xulay malcuunada ee uurka yeelatay aynu maxaan ku raay hada de naaya de ku ureeyay isagii markaa waa intay u sheegtay bay tir wareede waa la haystaa laakiin dhaqan baanu leenahay hadaanu nahay dirka iyo hawiyaha geed fuul geedka hadaad fuusho lagama soo dejin karo adigoo soo degan mooyaan markaad soo degaysana waxaad tiraahdaa midkiin dhabarka ay dhigo si aan isaga ugu soo dego marka ka aan ku soo dego
ayaa aniga damaanadayda qaadaya waa dhaqanka amba diinta markaa ay rumaysnaayeen biyo caynka gabadhii markay sirtii u fashisay wuxuu yidhi intaan soo imid wadaadkii loo sheegay ninkii daarood ayuu deedna yidhi iyagoo yaacayoo yimaadeen way tusoo waa kan bay tiri ninkay ureeyo markaasuu kiineen ku soo degaa markaasuu deeg yaabana sheegeen waar yaa u sheegay markaasaa dee gabadhaa sheegtay kolley waar soo deg baa layidhi hawiyaa yidhi dhabarka aniga ku soo degay soo fadhiiso hawiyihii buu ku soo booday dirkiina far buu ka taabto fartii buu iska jaraysna inoo daarood aanu bixin waanu dilaynaa bay leeyihiin iyaguna markaa intaas markay joogaan ay halkaa taagan tahay ayuu ninkii daarood wiil mooyaane gabadhba u dhali waayey 12 buu dhalay ya absame maxaan ku dhahdaa ma jeerteen magacyo kale leeyahay markay halkaa u marayo ayaa la waa ninkan uu inagu tafiirmo oo inagu farabatay hawiyii baa oranaya darkii taan iska qabanno markaaseen maxaynu ku qabanaa haddii sheekada soo wada waxaynu ku qabanaa bay yiraahdeen dee ninkan aan dillo wuu ogaaday daaroodinimadiisii buu yeedho markaasuu dee 12 war maxaynu yeelaa midba meel buu maray buu ya kablalax wuxuu yiri kablalax waa reerka ugu badan daarood awr baanu ku saaraynaa hareerahaanu ka maraynaa intaan adiga lagu dilaa anaga hana la dilo waanu dagaalamaynaa waanu iska celinaynaa nimanka dadkuna markaa uu yaraa bay yiraahdeen mid kale wuxuu yiri dhar dumar baan ku gelinaynaa oo deedna dumarkaas aad ku fakanaysaa caynka marka mid walba uu ducaynaya kii waan kugu dagaalamaynaa wuxuu yiri kablo laxbo ahaayo weliga lagu ma ciilo adigu isciila mooyaane marka dee aanu jeelka ku jirno ma jeerteenkii iyo mareexaankii oo labaduba daarooda isciilaya oo gabiska siiyay bogdo jeelkii ku wada jiradii marka laakiin ducadu u duceeyay kablo lax ya adiga cid kale kuma ciisho xataa ogaadeenka oo kablo laxaba iyagina meesha ku jira ka kaalay halka markay arintu marayso isaa u socoto ayaa waxa dhacay ninkii uu fakaday sidii buu ku fakaday deedna caruurtiisii mid walba uu duceeyay kii yiri dharka dumarkaan ku xireenaa wuxuu yiri tagoogtaada iyo xoogaaga tafeena dumar ilaahay gali jeelkaan ku jiro gabadh nin maxaan gabadh cayn ka ahayd reer ka ahayd awrtabla la yiraahdaa gabadh ka fariisanay 300 ee qof ee jeelka ku jiray gabadha ka fariisanay oo ka wanaagsanay oo de akhlaaqdeedii wixii ilaa jeelka waa la arkay nin walba naagtiisa caruurtiisa waxay u keentay waanu yaabnay markaasaan waati tii sheekhu duceeyay taas ah adigu saasay ahayd oo ku dibad waxaan uga socdaa sheekada dheer ee saa loo sheegay ee leeyahay waa caynka de inagu dirmayno ahayn ninka farta iska gooyay buu ahaa haddii aad doonaysaan deedna habeenkii baan riyooday anigoo cadhaysan abaagadhiin halkan joogo Mansoorna aan fadhiyo oo 30 dumar iyo 30 rag oo dira loo dabaal degayo oo lacagta saa loogu qasayo ayaan deedna ciil halkaas fadhiso waryaanahe isaaq war dadkii mee waasheen war nasabka dee lagu ma ciyaaro war wallahi sheekh saxaaq baa luxudka la soo kacibaan habeen baan iyagoo wada jooga luxudka intuu la soo kacaa dam daqiiqan la idinka dhigi waa maxay nimankiina nasabkoodii wixii doorinaya qaar baa u ciyaaro iswaalay oo xataa isaaq iyo xasaas waxba yiraahdeen moogti habeenkii isniintii ayaan riyooday waxaan ku riyooday madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo agaasimayaashiisa iyo dawladdiisa oo dhan oo intay meel fadhiyaan ilmada saa u qubaya oo waxa saaran ilaahay mooyaan dhibaatada saacaysa isku soo dultaagay dhinac liyaala dhinacaan u qaadaan garan waay riyooyinkayga haddaan saso way dhowdahay haddaan saso habeenkii ka kaco wax dhoweey nin wasiiraan u tagaaroornimadii waa riyo khataraan ku riyooday waa tii hore loo arkayay waa dhinacay ka imanayso wallahi iga tag inaana garanayn war sheeg madaxweynaha waxa tii diyaar garow waxba muu sameeyay waxa dhacay soo isniin maaha jimcihiina waxa dhacay gooja cadde ya Soomaaliland waa tii wada yaabatay saa u eegtay ya afareenoo yar waxba hayno cayn ka haynin baa geeshkii dhanay Soomaaliland jabiyay waa tii lagu dooqay kii baan qabsaday war meeladu sheegay wasiir waadiga madaxweynaha oo maxaan u sheegay waad habaaraysay habaar baan madaxweynaha u sheegay buu de anu maan oran gooja cadde waxba waxaan idinku murugaysan oo ilmada qubayaan arkay ya ma meel ay ka timid ma garanaye ya xagay tahay marka waxa weeye nasabka bedelidiisu waa arin xun oo aad iyo aad u aan wanaagsaneyn